ciidamada Soomaaliya ee ku sugan gobolka Bakool ayaa waxay sheegeen in ay si awood ah ku soo furan doonaan caruur ay sheegeen in al-shabaab ay ka afduubteen deegaano hoos imaada gobolka Bakool kuwaas oo tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 70 caruur. Abaandullaha guutada sagaalaad ee gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamuud Ogaas Cali oo KNN la hadlay ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ka caruurta haysta ay waalidiinta caruurta dhalay ay ka dalbadeen lacag madax furasho balse aysan ogolaan doonin oo ay si awood ah kaga soo furan kuntaw wala li sheego hay toddobaatan isamti iyaala marahaan meelayo taasku weelayaan 9 kilomitir ciidan luqa ya haysan kulli wali fi sheegay shalay madara diya bilaaw tarmoya illa halayna dan antabahan elgaris mil agaarshi lam unu kuudin kundola naka gurguriyaan li sheegay halay markii la sheegay hamimini tagaagi ciidanko alay hal hadda dadka keenaha gali hay duwi eeriyo hayna namuntu waa kuway lama sunu nugudin 9 kilomitir gobolka yo aan ku tabaano feero meelo aan ka bahaan oo bilaaheer wali ballanka qaaday in meeliyo galan lagal sahan andarsidi meelo giyaalkaas ligeeydon oo soonagan Bakoole meeliyo ku kuusan in hal mar aan ku qobada ya diyaaran ah waana ka ardigal sidoo kale militariga Soomaaliya ayaa saakay waxa ay dhaqaaqyo ay ku doonayaan inay ku soo furtaan caruurta iyo dadka u afduuban al-shabaab waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Bakool waxaana kamid ah duleedka Xudur oo saaka lagu arkayo ciidamo aad u fira badan oo ka tirsan militariga Soomaaliya halkaas oo la sheegay inay ka afduubteen caruurta ugu badan. warbaahinta Kenya ayaa baahisay in mid kamid ah raggii weeraray hotel ku yaal Nairobi talaadadii oo ahaa wiil u dhalay askari ka tirsan ciidamada dalka Kenya. ninkan oo magaciisu ahaa Cali Salim ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa hogaamiyaashii kooxdii qaaday weerarkii hotel D2 oo ku yaal dalka Nairobi waa dalka Kenya ee magaalada Nairobi waxaana la aaminsan yahay inay ku dhinteen 21 qof. waxa uu dhashay sanadkii 1992 waxaana waxbarashadiisii ka bilaabay kaniisad lagu barbaariyo caruurta dadka masiixiga ah. marwadii uu qabay Cali Salim ayaa iyadana ciidamada booliiska ee Kenya xabsiga u taxaabeen. wali waxa ay Kenya ka socda baaritaan xogaha dahsoon ee weerarkii talaadadii al-shabaab ay ka fuliyeen hotel D2 oo ugu yaraan ay ku dhinteen 21 qof. maamulka deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduudna waxa ay cabsi ka qabaan in dib uu cusboonaado dagaal beeleedyo ka dhacay deegaankaasi. Maxamed Cabdiweli Tuuxo oo Dhuusamareeb jooga ayaa inoo soo waramay. gudoomiyaha deegaanka Xeraale Bashiir Daahir Dhagabadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in deegaanka Xeraale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya laga dareemayo xiisado colaadeed kadib markii deegaanka Mayaraan oo u dhawaa Xeraale la geeyay ciidamo wata gaadiid dagaal hayeeshee shacabka ku nool deegaanka Xeraale ayaa waxa la sheegay in ay soo wajahday cabsi xoogan oo ay ka muujiyaan in dagaal uu deegaanka ka dhaco waxaana jira qaar ka mid ah shacabka oo ka barakacay deegaanka. hadaba gudoomiyaha deegaanka Xeraale oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxa dhacday oo annaga hadda nagu yimid ciidamadii ay hagayeen nimanka dharka culimada sita oo annagu dad qalatada aanu naqaano oo xasuuqayaasha ayaa mar kale nala soo duldhigay ayagoo gaadiidkoodii wato hadda ka hor markay halkan xasuuqa ka geysteen sidaas oo kale aan uga hadalnay adduunkana waa u sheegnay dawladda federaalkana waa gaarsiinay ayagana waanu eedin hadda waa yimaadeen Soomaaliduna waxay ku mahmaahdaa dhubuq hore dhabanahays dambay leedahay caga qaadi waaba ka dhici doona sidii tii horeba u dhacday haddii aan nala ka dulqaadin uma dulqaadan doono indhahana ka fiirsan mayno mar labaad inay inta nagu soo dhowdhowaadaan xasuuqaan haddana korka iyaga yimaadeen bayeeraan annagaa iska leh degan deegaanka iyagii tahay iyo aagga ka shisheeyo oo dhan iyo inta ay nimanku degeen
uma ogolaan doono ninkii shalana xasuuqay inuu inta soo galo mar kale naga xasuuqo uma ogolaanayno. Xeraale ayaa in muddo ka caaganay xiisado colaadeed iyo dagaallo waxaana sanadkii 2017 deegaanka horey uga dhacay dagaallo u dhaxeeya laba maleeshiyo oo kala taabacsan maamulkii Ahlusunna iyo Galmudug ka hor inta uusan dhicin midowga labada maamul ee Ahlusunna iyo Galmudug. Maxamed Cabdiweli Tooxow, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa degmada Jalalaqsi ka bilaabay howlgal ka dhan ah Al-Shabaab. ciidamada tiradoodu gaaraysa ilaa 200 oo askari ayaa loo soo xiray tababar waxaana loo diyaarinayaa dagaal ka dhan ah Al-Shabaab.